Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabteyda qaaliga kusoo dhawaada channelkeena Sharkatage maanta waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa noocyo kala duwan oo WhatsApp ah laakiin maanta hal WhatsApp aynu ka hadlaynaa waliba keenii hore mid ka duwan waxaynu galaynaa Google and Chrome markaynu galno waxaynu ku qoraynaa marka hore Google caadi centerkan tagaynaa markaynu tagno kadib weegi loo soo dejinayay markaan halkii Google aan tagno waxaynu ku qoraynaa WhatsApp Plus markaynu ku qorno waxay noo soo baxaya qoraalo badan iyo meelo badan oo WhatsApp-ka laga helayo waa maxay WhatsApp Plus waxyaalo badan buu inaga saacidayaa waa idin tusi doonaa marka hore qaabka loo soo degsan raadinaa laba website baa jira officialka iyo mid kale oo la yiraahdo APK kuwan kale waxyaalo qaar faris iyo waxbay wataan marka APK ama officialka aynu kasoo degsanaa imika officialka markaan downloadkiisa ka helno aad iyo aad buu inoo anfacayaa WhatsApp-kan waxyaalo badan buu kaga duwan yahay keenii hore fikrado badan oo dadka jeclaysan lahaayeen baa ku jira sida in aad xirato log aad samaysato in qof kaliya qaas u xirato inaad bluetooth iska qaado in kaliya message lagu soo diro hal tig uu noqdo waxaasoo idil ayuu leeyahay fikrado badan ayaa ku urursan markaad eegto khadka iga yar xun baan filayaa iga culus yahay yara dulqaata markaa sida arkaysaanba waxaynu taagannahay barta officialka ee laga helo toos marka imika soo dejino APK WhatsApp-ka Plus-ka wuxuu kaga duwan yahay in badan waxyaalo badan oo jeclaysanayso ayaa ku jira sida in magaranaysaye adoo internetka ku furan yahay mobilkaaga aad iska xiri karayso in magaranaysaye waxyaalo sidaas oo kale aad iyo aad u fara badan macluumaad aad u fara badan ka heli doontaan haddaad baartaan aad ka helaysaa marka insha Allah taala imika waxaynu ku dhufanaa download markaynu ku dhufano exactly anigu ii degsan yahay laakiin waxaa idin tusayaa halka laga helayo ee laga soo degsan karayo marka insha Allah taala download markaan ku dhufto wuu bilaabayaa downloadka kadibna markuu dhamaado kadib baad install siinaysaa sida exactly kii hore caadiga ahaa oo kale laakiin markuu u horeysay ujeedadu waxa weeyaan inaad ka saarto kaagii hore kugu jiray markaad ka saarto haddii Gmail uu kugu xirnaa mobilkaaga backup buu kuu sameynayaa waxaagii dadka la sheekaysatay oo idil halkaas kugu soo celinayaa laakiin marka hore waxaad u baahan tahay inaad uninstall siiso markaa uninstall siiso kadib caadi toos kuu geeyo arka doonayso install markaas siiso WhatsApp-ki sidii kale kii hore aad u programayso kale kana u programaysaa continue markaad tiraahdo agree and continue haddana mar labaad ku oranayaa waxaas oo dhan buu oranayaa waa kan sida arkaysaan WhatsApp-kayga saas u soo kacay sidii hore caadiga ah dadkan la sheekaystay dadkii oo idil halkaas ugu wada jiraan marka sida arkaysaan ba halka imika calaamadaas sare waxay noo saaran meel sida ay ku qoran tahay in wifi la furayo ama la xirayo kale muxuu halka ka qabanayaa talo wifi-ga wuxuu ka qabanayaa in WhatsApp-kaaga halka yaala bartiisa inuu ka xiro qadka oo idil message-na kuu soo dhicin message-na aadan dirin waa intuu xiran yahay hadduu laakiin xirnaashada ka baxo wuxuu noqonayaa in magaranaysaye message-kana kusoo galo message-na diri karayso waan ku dhufanayaa okay waan siinayaa okay markaan siiyo bes wuu ka boodayaa wuu soo kicin wuu isjarayaa wuu soo kicinayaa markuu soo kiciyo kadib halkaa waxaa fuulaya qufil micnaha uu ka xiran yahay marka ujeedada kaliya maaha in wax kaliya iska xirto laakiin waxaa jirta mararka qaar waxay message group adiidayso in mobilka kaaga buuqo diidayso kale saa awoodaad iska xirto imika saa arkaysaan okay waan ku dhuftay sida arkaysaanba wuxuu ku leeyahay qufil baa saaran saa idin sheegay markii hore marka qufilka waxa weeyaan wireless uu ka xiran yahay message-na kuma soo gelayo message-na kama baxayo micnaha sida uu eegto uu ka xiran yahay kadibna wax kale oo ku soo galaya ama ka baxaya absolutely ma jirtaba waan ka furayaa imika waxaynu galnaa casharaanteeni kale waxaynu eegaynaa qaabka waxyaalo badan loogu dubo sida arkaysaan imika waxaan eegaynaa wali ma aragteen status la down gareysanayo waxa aragnaa filaya iyadoo save la soo siinayo oo folder lagu soo save gareynayo soo aragnay laakiin imika way ka duwan tahay download bal soo siinaya sida arkaysaanba ila daawada imika video-ga arkaysaan ayaan waxaan ku tijaabineynaa in inoo download gareysmayo waxaan doonayno imika download markaan ku dhufto badhanka downloadka direct wuxuu u tagayaa gallery-ga meel kale ma tagayo toos buu u tagayaa gallery-ga mana noqonayo wax ka baxaya ama wax mataqaanaaye haddii timekiisii uu dhamaado ka baxaya bal u fiirso imika inuu ka baxayna gallery-gaan tagayaa gallery-ga markaan tago halkaas toos ayuu galayaa even sawiraan hadday noqoto videoyo anything I need kaliya badhanka markaan ku dhufto download baan siinayaa download markaan siina halkaas waxaygiina gallery igu save gareysmaya efa igama baxayo weligiiba halkaas igu jirayaa video-ga saa arkaysaanba
subxaan allahi alcadiim arwaaxi waxaan bismillaahi raxmaan iga tag indhaaba marone marka whatsappkeeni baan ku laabanaa whatsappkeeni markaan ku laabano waxaynu tegaynaa halkaa ugu sareysa saddexdaa dhibic baan ku dhufananaa saddexdaa dhibic maxaa ku jira iminka saa arkaysaanba waxaanu tagnay shaqsi baan ku dhufanaa waxaan eegaynaa qaabka single qof keliya aad ugu xiran karayso looga aad looga u samaysan karayso si ma garanaysaa looga uu noqdo mid ku xafidan sirtaada waa shaqsi keliya ood xiranaysaa even xataa waxaa jirta loogyo qaar markaa saa ugu dhufato meeshaad ku xiratay inay ka yara boodaan wixii tusaan haddana kadib kusoo laabta ma jirto automatic waa si dhaqso ah si degdeg ah marka alaala markaa saa ugu dhufato isla markii passwordka soo saaraya shaqsigaad ku xiranaysaa laakiin ma ahan whole whatsappka oo dhan ma aha shaqsigaad ku xiranaysaa shaqsiga markaad ku xirantay kadib ayuu mataqaanaaye ku kombergaraynaya ama ku ogolaanaya in waxaan oo yacni confirm kuu siinaya in shaqsiga keliya uu kugu xirnaa passwordka even haddii saa loogu dhufto waxay noqonaysaa inuu passwordka saa usoo boodo saa arkaysaanba passwordka waa in laga furaa kadib muu qofka gudbi karaya haddase passwordka qofka furin macnaha waxay la mid tahay qofka uu la hadlay sharmaarke ama mataqaanaaye in halkaa laga arkaynba iminka privacyga waxaa ku hoos jira waxaad arkaysaan hide online blue tickets second tickets writing status recording blue microphone hide view status waxaasoo idil maxay tarayaan waa waxa dadka ay wada raadinayaan ee aad u wada jecel yihiin sida blue ticketska oo kale in message-ka akhrisay aad qariso second tick baa jiro second tickna macnihiisu waxa weeyaan waxaad aragtay message-ka qofka markuu online yahay in laba tick ay koraan blue aysan noqon laakiin hadduusan eegin laba tick keliya ay koraan labada tick macnaheedu waxa weeyaan in qofka uu online yahay marka kana waxaa ka dhiganaysaa hal tick macnaha message-ga waa ku soo gaarayaa blue ma noqonayo hal tick keliyana ka dhiganaysaa sida exactly sida arkayso waxaa kaloo jira blue microphone tick markaad cod duubto waa marka la eego blue kuu noqonaya sidaad bluega ugu bedeli lahayd hard status yacni dee qof ma kuga xisaabtamayo maalin walba dee yaa ma yiri dee hebel baa anuu statuskeyga ka shidano mar walba ii daawada iska qari miskiinka waa bila views ka dhig marka iyadana hide value statuska taasay yacni inoogu duwan tahay waxaynu ku laabanaa halkiina ma garanaysaa writing status waa jira haa igaraal noqda writing statusna muxuu tarayaa waa wixii statuska aad ku qoraysay qaabkaad u qori lahayd iyo waxyaalo badan ayuu halkan kaga duwan yahay keenii hore wax whatsappkeenii hore uusan lahayn ayuu kani special khaas u leeyahay marka waxaan filayaa inaad aad iyo aad uga heli doontaan oo gebigiinaba inta daawanaysa insha allah asxaabta kulliga ka wada heli doontaan waxaan idin rajeynayaa farxad iyo caafimaad u faa'iideeya